أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الله عبد الرحمن مركلة إيو عشردي إعجاز القرآن أنا وهذه جهنم مر والبا إلى إذا كيس ما أنت حسوق هذا هدي له يرهدو عشر هذه عجيب كهي أن كفرني أن أيدي القرآن كهي أن كفرنا 10 كان إيوه وحيابها قرآن كسيدة وشرح حي معناها وبلها هي السنة كهي ساعدها يحبها نوعاس أن وحبذا أياد ركتين أنا جو سكودر درية أو كركلوتر كي جوته أو حروفته إيو قرآن كآيات كيسة يحبها نوعاس حسابنا إياه laakiin bal maanta kuraasta xagsada hadii ilaahay yiraahdo waxaan u maleynayaa 10 kan inuu si weyn idin anfici doono hadii ilaahay yiraahdo waa 10 runtii iga yaabshay oo maskaxdaydu ay xamili laadahay runtii oo la yaab leh waan ogahay quraanku inuu mucjis yahay laakiin habka quraanku mucjis macnaha waa wax laga sheego ilaahay un baa sheegi kara subhanahu jalla wa ala. marka waxaan ka hadlaynaa hadii ilaahay yiraahdo arrimahaas ayaan ka hadlaynaa aayadihii rabbi uu sheegay ku sifeeyay inaynaan macnaha 4 bilood ashhur bilaha ilaahay inuu 12 ku magacaabay inna ciddata shuhuri inda Allah 12 shahran oo ilaahay yiri 12 bilood weeyaan bilaha ilaahay agtiisa ilaahay wuxuu og yahay 12 bilood inuu yahay sanadku fi kitaabillah kitaabka ilaahay maalintii ilaahay oo abuuray cirka iyo samada samooyinka iyo arlada markuu abuuray 4 kamida xurumaad ayuu ku magacaabay rabbi jalla wa ala taasuna waa diinta saxda ah ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala ee haystul minina 4 bilood naftiina hadul minina la dagaalama gaalada mushrikiinta ah sida ay iyagu badin la dagaalamayaan dad badan waxa laga yaabaa in ayadan khalad ka fahmaan mushrigu markuu kula dagaalamayo la dagaalami kartaa meeshana waxa laga hadlayaa mushrig weeye ee muslim la dagaalamaya lama rabo meesha kale oo mufiidka arintan ku jirta waxay tahay ayadahan ku jira waxay tahay 4 bilood ayaa ilaahay xarimay inaan islaamku isdhibaataynin haba yaraatee حتى قف إنه صار 4 حتى فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلهي ليه سبحانه جل وعلا. marka hadii laga heli lahay ummadda islaamka 4taas bilood inay isnabad galiyaan bisha ramadaanna isnabad galiyaan bisha dilxajna isnabad galiyaan 6 bilood qofkii colaad qabay oo xanaaqsanaa xataa waa hilmaamayaaba ajiib weey bal xigmadan waxa laga yaabaa in qaar ay yiraahdaan ayadaha waa la nasakhay laga yaabaa dad inay yiraahdaan sidaas laakiin waxaan cadeynayaa ayadaha ma nasakhna laakiin ummadda islaamka ayaa si u dhoohan oo balaayaha ku dhagan shaydaan ayaa ka qaalib noqday. marka walaalayaal bal 4 bilood oo ilaahay oo noo sheegay subhanahu jalla wa ala hal isnabad geliyo ummadda hal nabad geliyo afkaada iyo maxay ahato gacantaada iyo wax walba ha ka nabad galeen ummadda islaamka ah iyo ummadaha kale taba waxaan jeclahay 10kii inaan guda galo hadii ilaahay yiraahdo markaan intaas waaradii guud uga baxo meeshaana mushrikiinta la dagaalamayo oo jamac ah oo isku soo duulay islaamka dawal iska difaacaya xaq uu leeyahay qofku markii la soo weeraro inuu is difaaco taas waa mid sharciye weeyaan marka islaam ku duulaya maahan meeshaanu maxay ahato islaam ku duulaya cid uu ka gardaran yahay oo ciidan waxba u geysanna meeshan kamid maahan waxaan ayadahan ku hadli maayaan ala kulli xaal waxaan jeclahay inaan 10kii guda galo hadii ilaahay yiraahdo meeshan waxa ku taala bilo ama bil wax la yiraahdo bilo iyo bil 20 aayadood ayaa waxay ka hadlayaan bilahaas waxaan leeyahay 20 meelood oo quraanka dhexdiisa aayaduhuna waa 17 aayadood maxay haato meelaha ay ku jiraan waa 21 meelood weeyaan 21 meelood weeyaan waxaad arkaysaan meeshan 2 ayaa ku jirta bilood meeshan 2 ku jirta meesha 36 2 bilood ku jirta inna ciddata shuhuri inda Allah 12 shahran meeshaas suurada la yiraahdo in sabana 2 bilood ayaa ku jirta iyadana
21 meelood ayay qur'aanka kaga jiraan bilaha ama bishu aayaduhuna waa 17 okay markii la yiraahdo single ama xabad la yiraahdo oo la iska dhaafo jamca macnaha 2 bilood iyo wixii ka badan la iska dhaafo xabad laga soo qaado 12 kamid ah ayaa ka hadlaysa waa 12 kaliya weeyaan waa idin tirinayaa waa 1 waa 2 waa hal weeyaan waa 3 waa 4 waa 5 tan waa 4 bilood tan waa 4 bilood 5 haysanaa tan waa 2 bilood 6 7 8 9 10 11 12 kaas waa fardi weeyaan xabad weeyaan 12 bilood weeyaan inta kaleeto anaa idin sharaxi doona hadii Ilaahay yiraahdo macnaheedu wuxuu yahay 12 bilood ee aayadaanu ay sheegayso suura bara ku jirta waa kuwan ah iyagu xabada waliba quraankana ay ku fiirsan yihiin laga soo bilaabo suura baqara illa ma suura qadri inna anzalnahu fi laylatil qadri ay ku jiraan 9 suuradood oo quraanka kamida ay ku jiraan bilahaas dhamaantood macnaha iyagoo jamca iyo iyagoo fardiyaba marka meesha waxa ku jira wax macnaha maskaxda oo xamili karina ku jira runtii oo la yaab leh intaanan u gelin sharaxaadana dheer ayaa waxaan jeclahay inaan dul maro wax yar maalmaha sida aan naqaano 12 bilood weeyaan sanadku maalmuhuna waa cadad la yaqaano biluhuna bisha oo qamariga ah iyo qoraxduna way kala maalmo duwan yihiin oo taariikhdan la isticmaalo Gregorian-ka la isticmaalo hadda adduunka oo isticmaalo aad u fara badan iyo taariikhda islaamka oo bisha lagu tiriyo way kala duwan yihiin macnaha taariikho kala fara badan oo adduunyada ay leedahay way jiraan iyo maxay ahayd kalendar kale oo nooc kale laakiin labadan ayaa midna waxa loo tiriyaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam midna waxa loo tiriyaa nabiyullaahi ciise alayhi asalaam laakiin waxba ilaahay ba iskala subhanahu jalla wa ala marka waxaan rabaa inaan cadeeyo kood hore taariikhda miilaadiga la yiraahdo loo tiriyo qoraxda taariikh qoraxeedka oo badana kristaanku ay leeyihiin oo adduunku badana maanta isticmaalo waxay ka kooban tahay 365 maalmood sanadku iyo wax yar oo siyaadaha la socda quraanka dhexdiisa waxay ku jirtaa yawm maalin 365 jeer qofkii u baahan cadeynteedana waan idin soo cadeynayaa hadii Ilaahay yiraahdo xaqiiqo weeyaan xaqiiqo ah wabika wadibcaana yawmayni lama rabo yawma idin lama rabo yawmakum lama rabo yawmahum lama rabo yawma sidaas oo kaleeto 365 meelood ay quraanka dhexdiisa kaga jirtaa waa cajiib weey marka ma aana soo tirin aayadaha iyo waxyaabaha noocaasa laakiin intaas ugu filan ba 365 maalmood in maxay quraanka uu ka hadlayo marka iyagu waxa ma aysan sameeynin wax Ilaahay uu baray weeyaan subhanahu jalla wa ala uu ku hanuuniyo weeyaan tana iga yaabisay laakiin oo mucjiso ugu noqotay wax walba laga helayaaba tii maalintii laga helayaa tii habeenkii laga helayaa wax walba tii qoraxdii laga helayaa tii bishii laga helayaa bilahan qaybtan hadda aan ku jirno halkaana meeshan waxaan soo sheegay 12 bilood inay ku jiraan oo kali ah inta kaleetana ay yihiin xisaabka siyaada ah okay waxaan meeshan ka helay saacadaha sanadku intuu yahay inta saacadood sanadku uu ka kooban yahay waxaan kaloo ka helay inta daqiiqo oo sanadku uu ka kooban yahay subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billah waxaan kaloo ka helay habeenka laylatul qadriga ah wax badan waa ka sheekay marka bal arintan la socda wax macnaha maskaxda bani aadamku ay xamili karta ma baahanba bilihii waa soo sheegnay 12 bilood oo sheegay waxa kale ku jira arin cajiib ah ku jirta oo ah meeshan 4 bilood ku jirta 4 ashhurin meeshana waxa ku jirta 4 ashhurin wa 10 iyo 10 4 bilood iyo 10 hadii gabar oo ninkeedii ka dhinto kaleeto waxa laga doonayaa inay sugto 4 bilood iyo 10 cisho marka 10 cisho Ilaahay meeshan kuma aanu oran subhanahu jalla wa ala oo meeshan quraanku ma tilmaamayo laakiin 10 uu sheegaya 4 bilood iyo 10 laakiin wala iska fahmaa macna ahaan laakiin macna kale oo weyn ku sii jira meeshaas okay meeshan waxa kale ku jira
arbacata ashhurin kaleetaa ku jirta saddex meelood oo min afar ah ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta saddex bilood waxaa kaloo ku jirta laba bilood iyo laba bilood iyo laba bilood meeshaan waxaa ku jirta waxaan soo aragnay arbacata ashhurin oo tan ah iyo tii labaad oo tan ah iyo tan oo tii saddexaad ah waxay noqonayaan 12 bilood ay noqonayaan iyada naftirkeedu cajiib kala weeyaan subxaan allahi alcadiim meesha xisaab kala kusii jirto fara badan laakiin aan idin bilaabo waxaan jeclahay inaan iraahdo aayadahan suuradahan laga helay suuradda labaad 6 meelood ay kaga jirtaa bishu ama biluhu ay kaga jirtaa suura baqara suuraddaas afaraad hal meel ay kaga jirtaa shanaad laba meelood ay kaga jirtaa suuradda sagaalaad saddex meelood ay kaga jirtaa suuradda 34 hal meel ay kaga jirtaa 46 hal meel ay kaga jirtaa 58 hal meel ay kaga jirtaa 65 hal meel ay kaga jirtaa 97 hal meel ayay kaga jirtaa marka waa 9 suuradood weeyaan 9 suuradood kaliya 9 suuradood nambaradaas marka isku darto laba lagu daray laba lagu sii daray laba lagu sii daray laba lagu sii daray laba sidaas isku darto dhamaantood waxay noqonayaan wax la yaab kale 300 iyo 53 ay noqonayaan 353 ma garanaysaa waa bilaha qamariga weeyaan bisha qamariga sanadkeedu 353 weeyaan markaas waxa lagu dari karaa oo ku banaan inaad ku darto 4 meelood ayaa soo laalaabanaysa suura baqara ayada ugu koreysa oo shahru ramadaan alladii unzila fihi alquran laba meelood kaga jirtaa tan laba meelood kaga jirtaa oo suura baqara iyaduna suurada la yiraahdo suura tawba ayada 36 laba meelood ay kaga jirtaa biluhu suurada 34aadna laba meelood ay kaga jirtaa marka 4 meelood oo siyaadaha ku jirto xabad siyaada ay ku jirto afartaas ayaad waxaad u kala qaybi kartaa labada maalmood macnaha taariikhda miilaadiga iyo taariikhda hijriga u kala qaybinaysaa markaas tiiba laba siinaysaa markaas waxaan ku darayaa halkan waxay noqonaysaa 355 ay noqonaysaa 355 waxaan u qaybinayaa 12 bilood aan u qaybinayaa bilaha caadiga ah bisha caadiga waxay noqonaysaa 29 maalmood iyo 19.6 ay noqonaysaa qiyaastii okay taariikhda miilaadiga ku soo harta taariikhda miilaadiga waxa weeyaan sidii oo kaleeto 353 ayaad qaadanaysaa markaas waxa meeshan ku jirta 4 ashhurin wa 10 halkan arkaysaa waa 10 10 ku jirta 10 kaas ku daraysaa wal wax la yaab kala fiirshaya 10 kaas ku darayaa 363 xuruuftii faraha labadii afartii soo laalaabaneysay qaybtii labada ay u heshay labadii ka soo hartay labadii aan qaybta kala siinay tii kale ku daraya 365 maalmood aragtaa marnaba caadi maahan 365 markaas waxaan u qaybinayaa 12 bilood aan u qaybinayaa markaas waxay noqonaysaa 30.41 almost 42 ay noqonaysaa qiyaastii okay bilihiina saas ku haysataa labadii macnaha xisaaboodba oo labadii macnaha kalendarba sidaas ku cad yihiin moogtahay waxaan ku tusaa marka wax ka yaabiyaan ku tusayaa waxa ku jira meesha waxa ku jira quraanka 4 ashhurin wa 10 shahrayn mutataabi'ayn wa labo meeshaas waa 4 waxaan niri 3 meelood macnaha 3 meelood oo min 4 ah 12 weeyaan fiirshaya ila soco 3 meelood oo ah min labo ah laba jibaar macna 4 iyo 4 iyo 4 12 weeyaan suuradda sagaalaad ayada 36 waxa ku jirta 12 bilood waa 12 iyaduna macna tira la magacaabaya ku jirta ilaahay uu magacaabay jalla wa ala waxa jiro kale shahrayn waxa ku jirta 2 meelood ayaan jeclahay tan koo waa 2 bilood labo waa 4 noqonayaan waa 2 bilood iyo 2 bilood 4 bilood ay noqonayaan afartan ku daraya fiirsha meesha la socaya ajiibka meeshana waxa ku jirta 30 shahran ayadan ajiibka ah suurada leeyahay xaqaf ayada 15aad oo rabbi uu kaga hadlayo hooyada uu ku xusayo si weyn uu hadlayo meeshan وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها
oo wadacadhu kurhan wa xamluhu fisaalu 30 shahran 30 bilood ayaa caloosha ku sidaa canugeeda iyo nuujinta iyo naaska iyo uurka iyo wax dhan 30 bilood ku sheegay quraanku meeshaan 30 kaasaan ku darayaa waxaan ku sii darayaa 3 bilood oo halkan ku jirta 3 bilood 3 ashhurin watanaha dumarka macnaha والله إيه إسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر قفك معناها الدمر كهذا أنا عدد كل عينين عددي ذو حويان 3 بلاد ويان مدي أن جارين ولبا أو أما أن ديك بكل عين أما أن ديك جارينه أيضا 3 بلاد يسوقيسا أو عدة نقنيسا مركا تاسنا وحويان 3 ويان ماشي أصلا لحدنا كو ماركتها ayada ugu dambaysa oo suura qadri ku jirta 1000 bilood ay ka hadlaysaa 1000 tira 1000 ay ka hadlaysaa 1000 ayaan ku darayaa khayrun min 1000 shahrin ay leedahay mogtahay watasaha 1061 markaasan mar labaad waxaan ku darayaa afartii soo la laabanaysiin ku darayaa mar kale bal fiirsadaya afartii soo la laabanaysi afartii hore aan soo qaybiyo labada qaybood aan kala qaybiyay markaas waxay noqotay 1065 ay noqotay markaas waxaan u qaybinayaa wax loo qaybi kara raadinayaa saddexaan u qaybinayaa maragta 355 maximal bilaha qamariga ah meesha ugu sarreysa ay tagi karaan waa 355 weeyaan waxaan ku dhufanayaa saddexaan ku dhufanayaa waxaan ka jarayaa afartiyaanba ka jarayaaba aan ku darsaday hadda si aan qayb u helaan afartaas ugu daray markaas waxaan u qaybinayaa misana saddexdaan u qaybinayaa meeshan maxaa idinkaga muuqda 353.666 waa almost taariikhda hijrigana sida la yaqaano waxay ka kooban tahay 354 maalmood iyo wax yaroo siyaada ayaa raaca ugu badnaan 355 tagi kartaa ugu yaraana waxay tagi kartaa 353 سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أملينيس وحنو عانا لو أركاي قرانك سيدان ما أملينيسي عجيب ويا رنتي وحلا ياب لويان انت صدق وح أفوك شبانية أو وحي رن وحبا كسو قادينين ساعدها كل حجرة سنتك إنا لله وإنا إليه راجعون نمبر هذا أنا ينتري والله بقى يبدو كل قيب سميان قيب طبعا إيو قيب كنسية معناها قيب طبعا قيب كنسية ولا يقانا وقيب كلي iyo qayb laba iyo wixii ka badan ah macna waa shafci wal watr ilaahay quraanka ku sheegay subhanahu jalla wa ala quraanku nasiisaba waa sidaasba waa shafci iyo watr weeyaan mid slaag iyo mid dheer ama add number iyo even number wax la yiraahdo marka labadaas qaybood u kala qaybsamaan qaybta marka kinsiga ah ama macnaha xabadeeriga ah waxay noqonaysaa 700 haddii aad isku darto oo xabad u xisaabto bisha meeshii aan ka soo helnay oo kaleeto sida hadda aan soo qaadayay suurada aayad suuradaas taas ku darto meesha bisha kaliya ay ku taalo taas aad ku darto tan kuma jirto tan lagu darayaa maxay ahaato tan lagu darayaa bisana waxa lagu darayaa saas la isku darayaa waxay noqonaysaa ala kulli xaal 761 noqonaysaa qof kasta wuu sameyn karaa meesha ay ku taala bisha meesha kaligeed ay tahay bisha fardiga ay tahay ayaad xisaabinaysaa 761 noqonaysaa qaybta kaleeto oo dhabanka ah ama siyaadada oo 4 ashhur iyo shahrayn iyo waxyaabo noocaasa waxay noqonaysaa ama ashhur oo kaleeto 4 ashhur يسألونك عن الشهر الحرام الحج أشهر معلوم بلا لا يقانو بلو وبلو ويان qaybtaas waxay noqonaysaa 800 noqonaysaa iyaduna 800 noqonaysaa marka waxaan sameynaa qaacido la isticmaali karaan sameynaa waxaan leeyahay 800 oo jamaca ah ayaa waxaan ka dhaxelay 10 meeshan 10 aan ka dhaxelay ka siyaada ah 10 ka siyaada aan ka dhaxelayo meeshaas ku taala 10 kaasaan ku dhufanayaa 8,000 noqotay markaas waxaan ku darsanayaa balaasan isticmaalayaa marka waxaan ku darsanayaa 761 aan ku darsanayaa 761 8,761 ay soo baxday xisaab ah
maxay ka macno tahay bal meel ku qoro 8761 meel ku qoro waxaan xisaabinayaa saacadaha sanadka inta ku jirta sanadku waxa weeyaan saacadu waxa weeyaan 24 saacadood maalintii ka kooban waxaan ku dhufanayaa 300 iyo waxaan ku dhufanayaa 365 maalmood aan ku dhufanayaa bal u fiirso waa maximumka meesha ugu badan weeyaan maxaa soo baxday 8760 horena maxaan u helnay oon xisaabtan uga helnay 8761 macnuhu waxa weeyaan halkii sanaba hal saaca ku darma 24 sanaba hal maalin ku darmaysa 24 sanadoodba hal maalin ayaa ku darsamaya saan isleeyahay sidaas weeyaan malinaya masala 12 sano weeyaan meelahaas weeyaan adiga wax yar ku kordhaya adiga 12 sano hal maalin raacaya macnaha marka sidaas ayay misana waxay u tahay pure of pure intaasoo dhan waxa afka ku sii shubanaya oo wixiiba macnaha maskaxdaada buu wereerinaya runtii oo la yaabisaaba daqiiqadihi ka soo baxaya meeshaan daqiiqadihi ka soo boodaya meeshaan waxaan yiri xisaabtaana waxay noqonaysaa laba qaybood oo qayb dhaban ah iyo qayb kinsi noqonaysaa marka waxay isku noqdeen 761 iyo 800 560 isku noqdeen qaacida kale aan xisaabinaya waxaan leeyahay inta hadda meesha ku taala marka soo dejisaan sida hadda ay ugu yaalaan meesha hadda soo dejisaan oo xabad ku dartaan qaybtaas midigta ah oo aayadaha numberkooda waxaad arki doontaa inay noqdaan haddii aan la kala qaybin macnaha oo aan laba baarti laga dhigin waxay noqonayaan 1525 ay noqonayaan qof kasta wuu samayn karaa sidaas u samayn kartaa sidaas meesha ugu yaalaan aayadaha numberadoodaas ayaad isku daraysaa 185 ka soo bilaabaysaa aayadda saddexaad ee suurada qadrigeedna ku keenaysaa intaas ay noqonayaan markaas waxaan samaynayaa waxaan ka jarayaa waxaan ka reebayaa quraanka ku dhex jira suuradahan iyaga suura baqara laga soo bilaabo ilaa ma suura qadri ayaan ku aragnay bilaha marka waa 9 suuradood weeyaan macnaha 9 suuradood weeyaan quraanka aayadaha suuradaha ku dhex jira meeshaas oo aan 9 suuradood ahayn wuxuu noqonayaa 87 suuradood ayuu noqonayaa suuradaha ka soo harayo labadaas jaanib ka soo harayaana 18 ay noqonayaan marka hadii isku darto 18 iyo 87 meeqad haysataa 105 haysataa waxaad ku daraysaa 9 suuradood oo aan ka helnay maxay shahriga aan bisha aan ka helnay bilaha aan ka helnay 114 suuradood saasi noqonaysaa marka waxaan ka reebayaa 1525 aan hadda idin sheegayay oo meeshaan aad ka tiri kartaan halkaas ayaa waxaan ka reebayaa 87 suuradood ee ku dhex jirta oo aan laga helin iyaga bil iyo bilo midna laga helin waa ka bixinayaa 87 ka bixinayaa waxa ku soo harta 1438 ayaa ku soo haraysa 1438 waxaan u maleynayaa wada xasuustiin kulligiin taariikhda miilaadiga taariikhda hijriga aan leeyahay 1438 waa waqti sanadkan soo dhaafnay weeyaan markaas waxaan ku dhufanayaa sanadkan ku dhufanayaa markaan waxaan ku dhufanayaa maximalka sanadka 365 maalmood aan ku dhufanayaa waxa ii soo baxday 524870 ay soo baxday xisaab ah fiirshaya okay meel ku qoro taasna meel ku qoro waxa weeyaan 524870 waxaan xisaabinaynaa markaan saacadu waa 60 daqiiqo weeyaan 60 lagu dhuftay 24 1440 daqiiqo ayaa ku jirta maalintiiba markaas waxaan ku dhufanayaa 365 maaragtaa 25,600 oo daqiiqo ayaa ku jirta 12 biloodba sanadkii waxaan hore u soo helnay
524,870 730 kuu soo harta 730 maxaad ka garanaysaa bil walba bil kasta waxay helaysaa xisaabtaasay wuxuu helaysaa saacado bishiiba saacadaasay helaysaa intaasoo saacadood helaysaa 730 saacadood helaysaa markaas waxaad haysataa bishii intii helayso saacada inta sanadka ay haystay intii sanadka macnaha waxaan u qaybinayaa bishu waxa weeyaan 30.41 iyo wax la jira weeyaan runtii maragtaa 24 saacadood 005 intaas macnaha 24 kii saacadoodba sikina yaraa raacaya wax yaraa raacaya sidaas ayay wax walba waxay ku yihiin subxaanallahi alcadiim inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun weligaa ma filaysay wax noocaan inaad arkayso qur-aanku inuu mucjisa waan ognahay laakiin marar badanaan kusoo celceliyo qur-aanku looxul maxfuudkii weeyaan runtii oo gacmahanaga ku jira laakiin waanana aqoonba waxba kama fahamsaninba tana waxay noqonaysaa maynaray noqonaysaa runtii waxaan sheegay leylatulqadriga meeshaan aan ka helay waxaan u tilmaamayaa leylatulqadriga meeshaan aan ka helay aayadda koowaad ee aan ka helnay bil ramadaanay ka hadlaysaa bisha ramadaan shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan aayadda ugu dambaysa ee aan bisha ka helnayna leylatulqadri iyaduna ramadaanay ka hadlaysaaba labadaas gees ma qaadanaysid inta u dhaxaysa 7 weeyaan 7daas 3 aayadood oo ka mid ah way laban laabmayaan macnaha 3 jibaaray noqonayaan macnaha 3 aayadood aayadda koowaad iyo aayadda ku jirta suuradan la yiraahdo tawba aayaddaas iyaduna waa laba qaybood ay kaga jirtaa bishu iyo suuradan 34 iyaduna laba qaybood ay kaga jirtaa 3 lagu dhuftay 7 21 weeyaan 27 kana runtii waa laga dareemayaa waa laga arki karaa hadaad guud ahaan qaadato afar meelood soo laabanaysa marka 9 ku dhufo wax siyaadaha noqonaysa macquul ma soconayso laakiin meelo kale taan ka arkay 9 macnaha 9 waa lagu dhufo karaa naftarkooda oo waxa loogu dhufo karaa maxay ahaato waa 9 aayadood 9 suuradood weeyaan 9 meeloodna waxa ku jirta tiradan oo macnaha xisaabtu ay ku jirto oo 4 ashhurin iyo 3 ashhurin iyo 30 ashhurin iyo 1000 sanatin iyo waxba noocaas ku jira 1000 shahrin iyo waxba noocaas ka wadaa afwan marka 3 meelood oo min 9 inaan ku arkaan jeclahay ma xaqiijin karo hadda laakiin waxaan xaqiijin karaa oo 100% aan xaqiijin karaa 22 ayaan xaqiijin karaa 22 إن شاء الله بإذن الله الكريم كوي الله باتنك رمضان ليلة القدر ويان هل لقى الراديو سفي عنها لو قلنا نقول هذا إلهي نوق الله سبحانه جل وعلا هدي أن خير شيء إلهي معبوده محمود سنية إنه ميسانك حسناتك إيساره هدي أن حق دينا ربي محمود سنية سبحانه جل وعلا إنه وقع فيه وجديد وحكى لما هن نقال الرادس نماهي مقع الرادس نماهي وحي وقتها الدلال أي قطها إلهي ورب إلهينا وكمرغات سبحانه جل وعلا Soomaaliya ilaahay ku anfaco dhamaantiin waxaan kala codsanayaa walaalaha sharafta leh meelaha la socdo oo kaleeto asharadan xiiseeya inay faafiyaan ayaga naftirkoodu oo ay qaybiyaan oo ay maxay ahaato gaarsiiyaan cidii ay gaarayso waa cilmi runtii muhiim ah oo aad iyo aad u muhiim ah meelahan oo kalena waxaa laga baranayaa qaabka qur-aanku uu u dhisan yahay haddii xaraf faahata haddii la xisaabiyo sidaasoo kale noqonaysaa macnaha wax macnaha maskaxda bani aadamka ka weyn oo qarxinaya weeyaanba laakiin loo baahan yahay inaan ku tadaburno oo aan u fikirno oo aan si fiican ugu fiirsano oo aan baranno oo aan sidaas macnaha anagu ku xadgudbaynin oo aan beenna ka sheegaynin khaladna ka sheegaynin marka ilaahay nagu anfaco wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun cala al mursaliin walxamdu lillahi rabbil caalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh